salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalka sabna kasta official fadlan haddii aad tahay markii hore soo booqato janaalka subscribe saaro gambaleelkana furo si markasta ay kuusoo gaaraan muuqaalada kala duwan ee halkan aan soo gelino haddii aad horena joogtana muuqaalka noo leegare sidoo kalena muuqaalka sii sheergare si uu marka u gaaro saaxiib badan waa la ku mahadsantihiin barnaamijkana maanta waxaan kusoo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo Kisika Baya Kisika Chan oo hore usoo baxay 21 abriil ayaa hadda wax shaaca laga qaaday xilliga rasmiga OTT lagu soo fasaxi doono sidoo kale saaxiibada qiimaha waxa barnaamijkan kusoo qaadanayna filimka lagu magacaabo Sara Bajke oo muddo 2 toddobaad tiyaatarada Sara fiirin doona ganacsigiisa halka uu marayo maadaama filimka lagu magacaabo Sara Bajke filimka Dubursh marka ciriir u galiyay sidoo kale Dubursh ayaa soo qaadanayna labada maal filimkan ganacsigu sameeyay maadaama filimkan sheekaysa aad loo liidayay sidoo kale saaxiibada qiimaha waxa soo qaadanayna footage oo lagu dhawaaqay filimkiisa cusub oo noqon doona filimkiisa 23 oo marka actor-kan uu sameeyo waxyaaba laga dhahnay dhamaadka muuqaalkan ay marka ku soo qaadanayna filimka footage hogaamiye ka yahay saaxiibada qiimaha badan intaan u gudagulay filimka lagu magacaabo Kisika Baya Kisika Chan waxa soo qaadanayna filimka marka lagu magacaabo Dubursh marka hogaamiye ka yahay ninka lagu magacaabo Barbas kritisanoona filimka tashakuwaad ka tahay halka seef alaqaana filimka lagu matalaad awood badan sidoo kale filimka shirkadda caanka T-Series ayaa filimkan maalgelinayso halka director-ka lagu magacaabo Omar Watana filimkan uu marka director ka yahay director-kan waa director-kii sameeyay filimka Tanhaji Anson Warrior oo blockbuster weyn noqon sanadii 2020 hadana director-ka 3 sano kadib ay markaa fanka ku soo laabtay ee Bollywood-ka hadana filimka Dubursh ay markaa sameeyay inkastoo filimka sheekaysa aad loo liidayay balse filimkan dheewan ganacsi fiican oo markaa sameeyay marka la fiiriyo All India Business filimkan ganacsigiisu wuxuu gaaray ku dhawaad 110 karoor taasoo ka dhiganta filimka dheewan si weyn markaa loogu xoomay inta ka dambeysana filimka ganacsigiisa hoos dhacaya markaa si sameyn doona haddii aan ku jaangoyno filimka Day 2 filimkan oo dheewan markaa filimkan uu keenay 110 karoor Day 2 na filimkan hoos dhac weyn ama hoos dhac 30% ay filimkan sameeyay oo wuxuu keenay ku dhawaad 77 karoor taas ayaa filimkan keentay filimkan maalin ka dambeysay filimkan hoos dhac inuu si sameeyo taasna waxa keentay filimkan sheekaysa xun aweed iyo sidoo kale filimkan qaabka aalada VFX loogu tagay aad ayaa filimka u liidataa xitaa filimkan waxa ogaataa filimkan lacag wali ay markaa lagu kharash garay ilaa waxa shaac laga qaaday 500 karoor in filimka lagu kharash garay hore filimkan waxa lagu qoondeeyay budgetkiisa ku dhawaad 250 karoor ayaa filimkan lagu kharash garay ama loo qoondeeyay ama shirkadda T-Series ay filimkan u qoondeysay kadibna filimka waxa laga soo bandhigay teaser horaantii sanadkii ama dhamaadkii sanadkii 2020 daawadayaasha filimkan waa iska diideen kadib filimkan ku dhawaad 5 bilood ayaa filimkan tayo lagu sameeyay kadibna filimka tayintiisa waa la soo gabagabay waxa shaac laga qaaday 500 karoor in filimkan lagu kharash garay xitaa filimkan waxa dheer 150 karoor oo salirhaan ama filimkan uu qaadan doono mushaharaan ninka lagu magacaabo Barbas taasoo ka dhiganta filimka budgetkiisa ilaa 600 karoor filimkan kor ayuu dhaafaysaa marka la fiiriyo budgetka guud filimka waxa ku shaaca ka qaadna 500 karoor inuu yahay haddii lacagta marka la fiiriyo doolahan loo fiiriyo filimkan waxa gaaraysa ku dhawaad 60 milyan oo dollar ayaa filimkan lagu kharash garay waa filim marka taariikhan marka la fiiriyo fanka Bollywood-ka ay markaa sameeyaan oo lacag intaas lagu kharash garayo 60 milyan filim lagu kharash garay wuxuu noqonayaa taasna waxa keenta awoodda marka uu leeyahay Barbas oo marka ka soo badan ay ku qabaan marka la fiiriyo fanka Bollywood-ka hadana filimkan waxa laga yaabaa maalin 3 maalin ugu horeysa filimka marka la fiiriyo Jimcaha Sabti Axad filimka ganacsi fiican marka sameeyo saaxiibada qiimaha filimkan waxa fiirin doona labadiisa maalin marka la isku daro ama luqadaha kala duwan filimka lagu daawado ganacsiga marka filimka sameeyo Hindi marka la fiiriyo filimkan waxa soo xareeyay ku dhawaad 81 karoor ganacsiga sameeyay ku xoogaysan yahay marka la fiiriyo dhankaas Hindiga ama waqooyi Hindiya marka lagu daawado luqadda af Hindiga ayuu filimkaas si weyn uga gadmaya halka dhulka laga leeyahay marka tan lagu fiiriyo oo actor-kan marka uu ka soo jeedo filimka waxa uu soo xareeyay labada Soomaali lagu horeeyay 74 karoor halka marka la fiiriyo Karnataka soo xareeyay 17 karoor filimka labada gobol wuxuu ku liitaa Tamil Nadu iyo sidoo kale Kerala ayuu filimkaas si weyn ugu liitaa taasna waxa keentay dhankaas Kerala marka la fiiriyo Tamil waxa dhankaas ku badan dhankaas Kristanka ayaa marka aad ugu fara badan marka la fiiriyo Tamil iyo sidoo kale Kerala sidaas ayaa filimkan looga diiday marka la fiiriyo suuqyada caalamka filimkan xitaa si gaabis ayuu marka uga furmay oo overseas-ka 37 karoor ayuu hadda maraya 2 days oo marka la fiiriyo suuqyada caalamka waxa si fiican kaga gadmay filimka lagu magacaabo Pathan ayaa filimka kaga wanaagsan marka la fiiriyo suuqyada caalamka hadana filimka wadada guud filimkan wuxuu maraya ku dhawaad 213 karoor filimkan ogaada waxa laga rabaa 500 karoor filimkan markuu gaaro ayuu hit dhameystiran noqon doonaa filimkan shaqeeya marka u taal hawantaana filimkan wuxuu noqon doonaa flow actor-kan waxa la wuxuu ka mid yahay superstar-da marka la fiiriyo ugu marka la fiiriyo fanka Hindiya tani markuu sameeyay Bahubali labadiisa qaybood xidigan wuxuu noqday marka xidig marka saameyn leh saddex filim u dhow wuxuu noqday 3 filim marka flow 2019 wuxuu soo baxay Saho
haddana 2022 waxaa soo baxay filimkiisa Radishan, haddana waxaa soo baxay filimkiisa Adiburush. saddexda filim waxay ka noqon doonaan 3 filim oo follow actorkan waxaa la soo doonaa labadiisa filim inuu markaas Salar oo directorka yahay Barchantin iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Project K oo Naga Ashwin markaa uu ka yahay director. labadaas filim ay markaa la sugi doonaa barbahaasna markaa awoodaysa inuu markaa filimadaas ku gadmi doono. marka la fiiriyo Barchantin waa director awood badan oo markaa sameeyay KGF labadiisa qaybood. marka labada hadii ay midoobaan Barchantin sidoo kale ninka lagu magacaabo Barbas wax weyn ayaa markaa laga filan doonaa. saaxiibada qiimaha filimkan waxaa ku soo gudbin doona muuqaalada xiga halka filimkan uu ku dhameyn doono iyo sidoo kale natiijada filimkan waxay noqon doonto. wali waxaan ku jiraa ganacsiga aflaamta markaa sameynayaan. haddana wax soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Sarahajki Sarabajka hogaamiye Fiki Kaushal sidoo kale Sara Ali Khan oo waad filimkan ka tahay. filimka xisaabadan wax soo baxay 2 June sidoo ognahay hadda ku dhawaad 16 casho filimka teatar saarayay. ganacsi wanaagsan filimkan oo sameeyay oo wuxuu ka faa'iideystay filimkan firaaq halka ka jira maadaama filimkan waa fariinta familiyada iyo sidoo kale qoysaska filimkan loogu talagalay. wuxuuna filim markaa dira aan raahday Rome comedy markaa isku jira. Fiki Kaushal filimka sanadkan wuxuu ku furtay marka la fiiriyo guul taariikhi oo markaa wuxuu noqon doonaa filimkiisa ugu horeeyay oo markii saameynta coronavirus laga soo laabtay oo markaa ganacsi fiican markaa sameeyay maadaama filimadiisa ugu dambeeyay hadda noqon lahayd Sadar u dhaamay sidoo kale filimkiisa ugu dambeeyay hadda Gofinda Namera. labada filim waxa laga daawaday OTT-ga. haddana filimka lagu magacaabo Sarahajki Sarabajki teatar waxaa loo saaray teatarada ku dhawaad 16 filimka ganacsi fiican oo sameeyay oo hadda filimka wuxuu noqday hit dhameystiran. ganacsigiisa marka la fiiriyo World Collection kana filimkan wuxuu soo xareeyay 84 karoor halka overseas-ka filimka ganacsi fiican markaa sameeyay oo wuxuu soo xareeyay 9 karoor halka marka la fiiriyo All India Business filimkan uu soo xareeyay 66 karoor. hore filimkan wuxuu u ahaa filim average balse hadda filimkan wuxuu noqday filim markaa hit dhameystiran maadaama filimkan uu hadii uu gaari lahaa 55 karoor ahaa filim average balse hadda waa uu dhaafay wuxuu marayaa 66 karoor waxaa laga rabay 65 karoor hadii filimkan uu gaaro wuxuu noqon lahaa filim markaa hit dhameystiran. haddana filimka darajada waa uu gaaray World Collection kala filimkan hadda wuxuu marayaa 84 karoor. filimka hadii markaa uu soo bixinaa filimka lagu magacaabo Adiburush filimkan ilaa ganacsi 90 karoor ilaa 100 karoor filimka gaari lahaa. waxaa laga yaabaa filimkan toddobaadada ugu soo foodla ama bisha markay July markay bilaabato filimkan insha Allah laga qaado xilliga rasmi OTT-ga laga daawan doono maadaama filimka guul lixaad loo gaaray. shirkadda Maada ku filimeysa filimkan ay macaash fara badan filimka ka heshay. filimkan wuxuu noqday filim markaa hit dhameystiran. saaxiibada qiimaha badan intaas ayaa ka cusub filimka marka lagu magacaabo Sarahajki Sarabajki oo noqday filim markaa hit dhameystiran. barnaamijkeena ama mowduucan waxaa filimka lagu magacaabo Kisika Jan oo markaa hogaamiye ninka lagu magacaabo Salman Khan sidoo kale Pooja Hedna filimka Trisha Kuwad ka ahayd halka Jagabati Baabuna filimka laadal awood badan ku matalayo. Finkatechna filimkan waa doorka support roles-ka filimkan qayb ka ahaa xitaa filimka Bhumika Chawla filimkan muuqaal martiyo ku leh. sidoo kale filimkan ninka lagu magacaabo Siddharth Nigam sidoo kale shakhsiyaad kale filimkan qayb ay ka ahaayeen. filimkan sidoo kale soo baxay 21 Abriil ama Ciidul Fitr filimkan 2023 filimkan soo baxay oo markaa teatar la saaray. sidoo kale filimka hal bil markuu teatar la saaray filimka qorshaha markaa OTT-ga lagu soo fasaxo balse tiimka filimkan sidoo kale shabakada filimkan iyo ama barta loo yaqaan C5 ayaa waxay go'aansadeen nidaamkii hore markaa u saxeen shirkadaha kala duwan markaa filimka markaa 2 bil markaa masrax saaray yahay in kadib markaa OTT-ga lagu soo fasaxo. hanaankaas ayaa mana shirkadda lagu magacaabo C5 oo filimkan iibsatay. haddana wax shaaca ka qaaday 23 June ama jimcadan foodan ugu soo haysa in filimka OTT-ga lagu soo fasaxi doono waliba barta loo yaqaan C5 ayaa filimka laga daawan doonaa. filimka waxaa la fiirin doonaa in ku teatar saarna filimkan ganacsigu sameeyay. filimka marka la fiiriyo All India Business filimkan wuxuu gaaray ku dhawaad 112 karoor. waxaa laga rabay filimka hadii 125 karoor gaari lahaa filimkan wuxuu noqon lahaa filim marka average ayuu filimkan noqon lahaa hadii 150 karoor gaari lahaa filimkan wuxuu noqon lahaa filim marka hit dhameystiran. hadda wuxuu marayaa 112 karoor filimkan soo xareeyay oo wuxuu noqday filim marka below average oo marka follow-ka karoon. marka la fiiriyo filimka ganacsigiisa guud dibadda filimkan wuxuu gaaray ku dhawaad 180 karoor filimkan guud ahaan gaaray. filimkan waxaa laga rabay 200 karoor ilaa 250 karoor hadii uu soo xareyn lahaa filimkan wuxuu noqon lahaa filim marka hit dhameystiran. inkastoo filimkan awoodda Salman Khan filimkan maalmihii hore filimkan ama labadooda ugu horeysay marka awoodda Salman Khan filimkan uu ku gadmatay kadib filimkan uu sii socon waayay oo ku dhawaad 3 toddobaad ama 4 toddobaad filimkan marka teatar saarna gabi ahaanba filimka teatar waa la iska dajiyay. haddana OTT lagu soo fasaxi doonaa 23 June oo maalinta jimcaha foodan ugu soo haysa filimkan lagu soo fasaxi doonaa OTT-ga. filimkaas goorta noo balama hadii marka la soo turjumo waxaan soo dhigi doonaa groupka Telegram-ka kulleen Family Entertainment linkiga hoose ayaa markaa soo dhigi doonaa.
ama qaybta description iyo marka linkiga yaal halka kala socda kadibna channelka join dhahda si aad mar walba la socotaan aflaamta kala duwan ee markaas soo galino channelka Telegramka. ugu dambeyntii barnaamijkan wax ku soo gabagabeynaa actorka lagu magacaabo Raffi Teja ayaa lagu dhawaaqay filimkii 73 filimkan waxa loo bixiyay magaca Eagle waxaana filimkan maalgelinaysa shirkadda lagu magacaabo People Media Factory oo hore ugu maalgelisay filimkii Dhamaadka oo December 2020 daawaday filimkaas oo noqday filim markaa blockbuster haddana Raffi Teja sidoo kale shirkadda inay dib u mudoobay filimka lagu magacaabo Eagle ayaa markaa dib u wada filimka wuxuu noqon doonaa filimkii 73 oo markaa sameeyay Raffi Teja haddana actorkan wuxuu socdaa filimkiisa lagu magacaabo Tiger naga soo wareerow oo filimka la daawan doono October sidoo kale filimkan marka la fiiriyo waxa directorka ninka lagu magacaabo Kartika Tamanini oo hore filimkii Dhamaadka u qaabilsan qaybta markaa sanamta kafri ama goobaha lagu duubay haddana filimkan ay markaa dib u wada oo filimkan wuxuu noqon doonaa filimka director sidoo kale filimkan waxa xiiso u yeelaysa filimkan wuxuu soo bixi doonaa January 2024 ama feesada dhankaas lagu ka jiro loo yaqaan Sagranti filimka soo bixi doonaa taasoo ka dhigantay actorka labada superstar oo ugu weyn marka la fiiriyo fanka lagu barbaasay sidoo kale ninka lagu magacaabo Mahesh Abu marka dhexda ka gali doona oo labada filim ee kala project-ka iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Gunter Karam ina marka soo bixi doonaan feesada marka loo yaqaan Sagranti ama January 2024 sidoo kale filimka waxa laga yaabaa in marka waqtiga lagu weeciyo oo dib loo dhigo sidoo kale filimkan waxa loo doortay waqtiga filimkan hadalay badan filimka loo sameeyo sidoo kale filimka waxa laga soo bandhigay teaser yar oo kooban oo filimka lagu xaysiinayo doorka marka qaadan doonaan kaalimaha kala duwan sidoo kale filimka xigta lagu magacaabo Anubama Parasuram ayaa filimka tarsho kuwaad ka noqon doonta actorkan wuxuu rabaa guuldaradii filimkii kala kulmay Parasuram inuu marka dib kaga soo kabto